Geeska waa kaa qaaday Yaasiin waa kaa qaadaysaa Maido Abbas waa kaa qaaday Abbas Johnson Gabasada mayelan qaabtaan gabasada mayelan gabasada magatan gudikudikani aye kadilagu yabiyo gacmada wala شكري وكاغا شكري أحمد ماري عاو waxaanu ka hadlaynaa taariikhdii iyo markii lagu soo duulay daraawiishta iyo goobtii ugu horeysay ee Afrika lagu weeraro diyaarad military goobtii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ama Afrika baa indhaana diyaarad lagu weeraray magaalada Taleex baynu caawa falanqeyn doonaa waqti yar oo kooban iyo sababta Soomaalidu u xusilaadahay daraawiishtii ka dulqaaday reeriyadii gumaysiga sababta ay ugu mahad celin waayeen Soomaalidu daraawiishta baynu falanqeyn doonaa waqti yar oo kooban Soomaalidii aanu xoreynay baanu ka baxsan laanahayba Soomaalidii aanu ka xoreynay Talyaani iyo Ingiriis caawa waxaynu xusaynaa boqolaalkii kun ee darwiish ee ku dhintay magaalada Taleex iyo aageeda ee diyaaradihii Ingiriis ku duqeeyeen maxaa loo duqeeyay sababta loo duqeeyay waxay ahayd in ay xornimo Soomaaliyeed raadinayeen sababta loogu soo weeraray diyaarad goobtii ugu horeysay ee Afrika ee diyaarad lagu soo weeraray maxay ahayd waa geesinimada daraawiishta iyo in ay Ingiriiska tuseen awoodiisii isagoo markaa ahaa quwaddii ugu weyneed ee caalamka markaa ka jirtay daraawiishta oo wata seefo iyo xiniyahooda iyo Soomaalinimadooda aaminsan baa ka hortagay kana guuleystay wiilkii ugu kibirka badnaa barigaas adduunka ee koofi loo oran jirayna madaxiisa ku casheeyay magaalada Taleex baana maraqiisa lagaga cabay madaxiisa dadkii Oromada Soomaalidii aanu xoreynay ee sida ahayd in ay maanta anaga faatabakh iyo hub iyo qaylo nala soo doontaan waa khalad weeye halkii ay noo mahad celin lahaayeen oo ay oran lahaayeen waad mahadsantiin waadna xoreyseen qofka ugu horeeyay aan siinayno aan ku jiri doonaa waqti yar daraawiishtu markaa in dib loo soo celiyo oo ay oga
هذان هلو أرميل مقدي أقول ترى صاحب محاك هالس يا بعدين جوجا محاك هالس صاحب دراويش بانو كهadlayni waad ogeyd waxa waad balla socoto daawanaysa وهذا سوق على صاحب دراويش الدنيا ونمت شروي محل يلعب محل عصب يا على خليفة هذا اللي المغلية war cali khaliif anaga wasneen nagala tag maxaa cali khaliif nagala su'aalaysaa dadkii Soomaaliya soo halgamay baanu ka hadlaynaa adna cali khaliif baad nala su'aalaysaa dadkani waa waalan yihiin hanala su'aadina su'aalaha xunxun iyo riwaayada waxaanu ka hadlaynaa dadkii Soomaali xoreeyay ee dhiigooda u huray ee daraawishta isna wuxuu nala su'aalayaa cali khaliif iyo hebel iyo waxaas anagu kuma jirno caawa waxaynu ka hadlaynaa taariikhdii daraawishta 1920kii bishii labaad toddobadeedii waa maalintii lagu horeysay ee Ingiriisku duqeeyo magaalada Taleex Ingiriiska adeer ama Ingiriis ha ahaado ama cid kale ha ahaado waa in laga qaadaa magtii daraawishtii meeshaas ku dhimatay xaqii iyo xuquuqdii dadkii meeshaas ku dhintay waa in laga raadiyaa oo uu kibirka waliba ku soo doontay intuu kibir Soomaaliya ku soo aaday oo wadankooda kibir ugu soo xadgudbay inuu boqolaal kun oo darwiish duqeeyo waxana uusan ka dhihin ilaa hadda wax suurtoobaya maaha wax suurtoobaya maaha xuquuqdii dadka daraawishta waa inay Ingiriis u doontaan xuquuqdoodii iyo dadkii uu ka laayay dadkaasi ma ahayn adeer dadkaasi lagama tagay Ingiriis dadkani dad sharaf leh bay ahaayeen Ingiriis bartiisaan ugu tagaynaa ma soconayso inuu iska intuu dad daraawiish laayo uu yiraahdo ma aqbalayno halo السلام عليكم وعليكم السلام سلام aad baan ku salaamay caaqil barnaamijkaagana waa salaamaya shacabka Soomaaliyeed ee xaraasha ee meesha ku jirana waa salaamaya kulli maanta maalin aad inoogu weyn qof kasto muwaadin oo Soomaaliyeed oo waxa weeye dareensan ama fahansan waqtiyadii isticmaalkii Ingiriisku dalkan gumeystay iyo Talyaaniga labadaba marka horta marka hore ummadda Soomaaliyeed hambaliyaan leeyahay waxa weeye sanad gurada ka soo wareegtay iyadoo Soomaali badan aysan garawsiyo badan bixinayn halgankii qaarkood waxa arkay hadda message soo qorayo argagaxis oo haysaga godoon isku mid weey midkii hadda aad soo qabanaysay waxa weeye barnaamijka toos buu la socday waa bahdilaad si kastoo lagu bahdili karo halganka Ingiriiska Soomaali badan oo xitaa aaminsaneen baa jira marka inaynu dadka ku adino oo aynu muujino oo aynu raadino waxa weeye hawshii Ingiriisku waday waa muhiim weeye ma garata daraawishni oo qof Soomaaliyeed xoreysay oo futaxun waxa uu kula imaan karo oo ma garanaysaa isyeeliyada ma jiri karto daraawish cid bahdili kartaa ma jirto waxaasna adeer wax laga yeeli karo maaha wiil yar oo Soomaaliyan awowgii isagoo la adoonsanayo xoreeyay inuu qaylan nala soo aado wax socon kara maaha marka ra'yigaaga sidee daraawishta lagu midayn karaa oo ay u soo celin karaan karaamadoodii iyo sharaftoodii kelmadaas ugu dambayso aan ku siinayaa qof kale aan jaanis siinaynaa barnaamijka waqti yar oo kooban weeye maxaad taariikhdii daraawishta dadka uga sheegi kartaa maxay ahaayeen daraawishta waa maasan tahay marka hore su'aalaha hore ay weydiisaan ku hormaro maxaa lagu midayn karaa daraawish runtii daraawish sharafteedii iyo karaamadeedii haddeer waxa weeye meel walba caalamka waxa weeye waa lagu dhigtaa maktabada waaweyn caalamka dhan bay taala daraawish halgankay soo gashay ama geeska Afrika ka soo gashay marka waxaan leeyahay dadka deegaanadii ay ka abuurmay daraawish ee Soomaaliya sanaaga cayn in dhalinyaro wax bedeli karta ay isu tagaan oo ay maalmihii xusitaanka daraawiishta la badiyo Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan Taalo loo dhiso saligii ugu weynaa daraawishada Taleexna waxa weeye dib loo cusboonaysiiyo waxa weeye boorka laga jafo midda labaadna waxa weeyaan ku boorinaya madaxda Soomaaliyeed iyaga dalka mas'uul ka ah in maanta sharaf darro iyo karaamad darro ku tahay dawladda Soomaaliyeed ama dawladaha Soomaaliyeed waxay doonaan ahayd ka jira Soomaaliya in maalin loo sameyn waayo waxa weeye halgankii xornimo doonkii daraawisheed waxa weeye taasna bahdilaad weyn iyo sharaf darro ku tahay madaxda Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa hadda jiraba
taariikhda daraawiisha taariikh waxa weeye lama ilaawaan ahayd iyadoo gaalama ingiriisi ku dagaalamayeen diyaarado iyo hubka kala duwan waxa weeye daraawiish waxay ku dagaalamaysa fardo iyo waxa weeye hadii qadarka leeyahay waramo iyo seefay ku dagaalamayeen ilaa malaayiin kunoo farday haysteen ciidamadoodu waxa weeye malaayiin bay ku dhawaayeen sayidku wuxuu tagay ilaa baydhabo tagay ilaa beledweyne saldhighiisii ugu labaad ugu weynaaba waxa weeye yaalay waqtigaasi la duqeynayay meeshaasi waqti waxay aroor oo waxa weeye aroor baheedo waaga markaa soo baxay qoraxda waxa weeye wixii meesha ka dhacay dad waaweyn naga markaan ka wareysanay xaaladdu say ahayd cid walba oo cabiri kartaa marka taariikhda halganka daraawiisheed wax la soo koobi karo runtii ma aha marka anigu intaas baan kulli ku darsanayaa sharaftii iyo karaamada waxa weeye reer SSC baa soo celin kara waxa weeye boardkana dib uga jafi kara waa ku salaaminaa qof kale jaarisineed waxaan kaga duwanahay wiilasha kale ee Soomaaliyeed ee aan daraawiishta ka dhalan nin walba awowgii baa la soo guumeystay oo sida dameerka loo raran jiray aniga awowgay sharaf buu ku dhintay sharaf baa lagu duqeeyay isagoo halgankiisii iyo Soomaalinimo u dagaalamaya lagu duqeeyay laakiin waa nasiib daro dadkii aan shalay xoreynay iyo dawladii Soomaaliya ee aanu keenay anagu in ay xusi weydo taariikhdii daraawiishta aniga awowgay lama guumeysan waa alxamdulillah laakiin Soomaalidii aanu xoreynay in ay maanta oo la guumeysan jiray in ay noo keenaan qayla iyo buuq waa waxaan soconayn هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. شو عنت نادرو؟ خير وي. أنيو أدو واحد تراون دراويش بقى يا سومالي ودن حورة بس إذا سوم بقى أفر لاتك الساعة هاي دراويش تسومالي ده حرس حاجة جوكتا سومالي ما جبوتي بحرس سوم مقدشة حرس سوم كينيا حرس سومال لنا قرى حرس وحنوش كان يسبب الدعوة adiga horta wajigaaga inaad keentid oo dadka tustid oo sidii nin u soo fariisatid anigu nin darwiishaan ahay wajigayga la soo tagay la soo fariistay meesha adiga wali inaad guumeysi ku jirtid iyo baqdin waxa ku cadeynaysa wajigaagii baad baqarinaysaa markaas aad doonaysaa inaad daraawish iyo gishid iyo hadalkaas warhaya adigu wajiga inan ma tihido isma daawanayno ima caashaqaysidee waa muhiim qofka hadlaya annaga burcadbadeed ma qaabili karna nin burcadbadeed oo kala tahay nin meel madow intuu soo galay iska qaylinaya adeer looma baana qofku hadduu dambaabayo waa in wajigiisa la arkaa ama gurigaaga adeer seexo sariirtaada joog oo kiimaka maxaad sidoo maskaxdaada haddii maskaxdaadu isku buuq iyo isku furan ku jiran yahay adeer sariirtaada iska seexo ma garatay godkaaga madow ku jiro haddii kale wajigaaga soo dhig oo nala xaajisa markaa war kiimaka fur maxaad u weyday anigu maxaad igala eeganaysaa adaan kuu baahanay dhade wajigaaga u baahanay dhade taageersanaa ninkaasi daraawiishtu taageersanaa nin darwiishu ahaa laakiin nin darwiish ka soo horjeeda oo shalay awowgaa baan xoreeyey aabbaha baan xoreeyey oo sidii dameerka loo raranayay inaad maanta ila murantiso khalad kuguma aha war muranba maaha baan kuri afar laatan saac waxaad tiraa daraawiish baa Soomaali xureyso Soomaali anigu igama daba hadli karto Soomaalida daraawiish xureysay shaq adeer waxay xoreysay ilaa iyo koonfur ilaa iyo waqooyi ilaa iyo Soomaali galbeed ilaa Djibouti meel aysan xoreyn daraawiishtu ma jirto ma garan war adeer Ingiriis Soomaaliland oo quru haysta adeer Muqdisho Talyaaniga ka tali jiray ciyaarta naga daaniyo oo dadka qiyaaliga ugu sheekeen horta taariikhda inaad soo baratid soo ma wacna taariikhda aad waa inaad buug iyo ma garanaysaa niyow dad jaahila anagu ma qancin karno qof aan iskuul tagin waa hooyadii iyo aabihii wax barin iskuul la geyn inaanu anagu taariikh Soomaaliyeed kugu qancinaba ma garanaysaa sidii waxaad fahmaysaa baan u malaynayaa in sida baabuurta loo xamaasho dekada Boosaaso iyo dekada Berbera ma garanay mid aad xamaalka tahay annagu waxaan doonaynaa dad aqoon lahoo waxaan ma garanaysaa og guumaysigu waxa uu yahay dhibaatada uu leeyahay laakiin adigii baaba waxa qaabaan kugula hadla ma garanaya anigu hadda ninkii daraawiish anigii baaba Soomaali xoreeyay
markaa in adeerow kulama Anigayga- nin aan xoreeyey lama murmi kara qof kalaan jaaniska siinaya warda hadalka lama wadaagin adeer caana la wadaagay hadalkii daadeer daraawiish anaaba ah baan kuuri maxaa daraawiishtan aad ka sheekeynaysa waa maxay dee daraawiish ma taqaanaa qalcadeeda labaad ama xarunteeda labaad meesha ay ka dhisan tahay beled weyn bay ka dhisan tahay qalcadda alla aamin annagaa kuu sheegayna haddii aadan aqoon daanyeer waxaa tahay futa xun oo aan shalay xoraynay sidaa u bara taariikhda haddii kale khasab iyo ul baanu kugu baraynaa haddii aad ku baran weydid wanaag iyo iskuul inaad aadid waxaad tiraa gaal anigu dhegeysaniyo waxaad tiraa gaal futacad anigu ma aaminayo saan wey soo adiga dawarsado ceedhiisa qaato imika dul fadhiya nin aanu shalay xoraynay baa muran iyo qaylo kuula imaanaya waa waali weeye ninkaas shalay xoraysay in uu maanta kuula yimaado muran iyo qaylo halo halo الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ها ولا كرو هذا الدميال حنوسنيسا محل تايسا war ma xanuunsanayne adiga xanuunsanaya xanuun meesha u fadhiye daraawiishtii هاي wax ka hadal oo hadal waad iska soo fadhiisatay oo waad aamusay waqooyi daraawiish xaraysay waxaan la waxay xaraysay ma jirtee kor isku qaad baan ku yiri umada afka la soo galini daraawiish haday xaraysay imikadan day isku xareeyay dadkeena hor jooga waqooyi may xoreyn daraawiish iyo ka is xoreeyay xornimada ana cid ugu horeysay waa la yaqaana maxaa loo duqeeyay hadaysan adiga ku xoreyn oo waqooyi ilaa taleex baa la duqeeyay taleex maxaa loo duqeeyay ya halo naagaha walwalan baa ku imaanaya yaan soo qabanaa qofkaasaan jaaniska siinay soomaalidu waa inay fahantaa soomaali halo السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوم هتكلسنا. يا. عاوم هتكلس. waxaad ka hadlaysay waad badhageysanaysaa inaan taariikhda daraawiishta ka hadlaynay. warigada bageed daraawiishta maxay tahay? naga tag waa hooyada weeye daraawiishta maxay tahay waa maxay? dadkan walwaalan la dambaajinina hana dambaajinina daraawiish qofkii garan waayay in aanu cayno oo uu daanyeer dhalay yahay weeye halo halo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام waan ku salaamay garaad waan kaa qaaday horta kolley macnaha barnaamijka aad ka hadlayso waa barnaamij aad u wanaagsan mar walbana aad ka hadlayso wayna fiican tahay in la isbogaadiyo macnaha taariikhdii Soomaaliya ay lahayd ama ay daraawish lahayd na laga hadlo dadkan hadda hadlaayana waa dad ciyaal macnaha hadda soo kacay daraawishna waxba ka aqoon taariikhda Soomaaliyana aan macnaha iskuulka ku soo dhiganin macnaha qofka ama iskuul buu ku soo qaataa ama wax waalidiinta ay kaaga sheekeeyaan ama waxaad macnaha murti ahaan adag ahaan iyo qof soo joogay marka daraawish waa dad la yaqaano waa dadkii Soomaaliya xoreeyay ma fahantay meeshay ka asaasatayna waa taleex bay ahayd waxaan xasuustaa iskuulkii u horeeyay gabaygii u horeeyay aan barto wuxuu ahaa gabayada ay kamid ahaayeen Sayid Cabdulla Xasan intii iskuulka loogu dhigay galaas waxaan ahaa 1 macnaha markaas gabayga aan lagu xujeynayo 9 nin oo walaalo asniina iskuulkaasi waa xagee iskuul Sheekh
sheekh bashiir buu ku yaalay Hargeyso ma fahamtay sheekh si bashiir wanaagsan baa la Hargeyso ku yaalaa 9 nin oo walaalo ah sideena 8 nin may 9 nin oo walaalo sideena 8 nin oo walaalaa sidiina waan dhigtay amba gabaygaas laakiin sorry waa ilaaw sorry call bay soo galay marka macnaha galaaswan baan wallahi ahaa laakiin macnaha wax badan sagaal nin oo taasi waa sheeko yar oo raqiisa 9 nin oo walaalaa macnaha fiiri hadda fiiri macnaha way ka bilaabatay fiiri koofilow garaad hadalka isii daraawish inta aysan bilaaban maxaa ka horeeyay ilo taariikhdu macnaha inagu ma qorin iyada isqorto buu ogtahay afkeenana kama inaad taariikhda umanay soo joogin wax waalidiinteena ka maqalno wax taariikhda iskuulka naloogu soo dhigay ahayd sayid cabdulla xasan markuu berbere ka soo dagayo ya ninkii aasaasay buu ahaa daraawishna dadkii ugu badnaayay raacay oo waa waalan yihiin sayidka waa ka horeysay daraawishtu dad diyaarsan bay ahaayeen oo halganka iyagu markii walba dhulkooda aysan ingiriis joogin oo ka hor istaagsanaa sayidku aqoon yar buu ku soo kordhiyay sayidka rag ka firfircoon baa jira oo taalla in loo dhiso habboon ismaaciil mire waa ninkii Afrika ismaaciil mire khibradiisii sayidku nin guri hilib iskaga cunuha taleex buu iska fadhiyi jiray maskax waa lahaa laakiin sayidka taas anugu aflagaad ismaaciil mire waxa uu ahaa ninkii ugu khabiirsanaa ee hawshan hadalka aynu siino okay fiiri waxa hadal iska raqiisay nin hilib meel ku cunaayay adoon dhihin ya hilib hadduu u baahan yahay cidiisu dhex joogi lahaa geelna cadayska looga lisi lahaa hilibna iska cuni lahaa laakiin macnaha waxa adiga daraawish mooyaan sayidku laakiin sayidka u diiday adduunka caalamka fiiri buwaagtiisa ingiriiska meel walba yaaleen taariikhdiisa kuma diidan wadanka way u soo halgameen nin kasta oo wadanka dhiiga u shubay oo naftiisa u gooyana taala iska dhaafay adigu xusbaad ka hadlaysaa ducu laga mudan yahay awooyaasheen ducawa mudan yahay sayidku laakiin in laga badbadiyo maaha sayidka waxaan qabtay maxaa looga badbadinaa managa qortay taariikhda qortay inaad erow fiiri majaha dadkii wadankan u soo halgamay in la iska indhatiro waa khalad weeye oo sayidka laga soo qaaday lama indhatiraayo laakiin sheekadu meeshay ka bilaabatay fiiri sheekadu madaxay leedahay markaa waa jaaniska ugu dambeeya haddaa adiga macnaha ina noo khudbayso macnaha taariikh aad na barto aad macnaha ku talagalsan tahay aan ku dhageysano haddii kalena intii aan wax kala faa'iideysano okay soo gabagabay kelmadaada u dambeysay laakiin macnaha adiga sidaada waxa ku jirta carcar baa ku jirta laakiin iyo carcarta iska dhaaf dadkana wax ka faa'iideyso dadkana wax u faa'iidee laakiin dooda ma fiicno oo macnaha hadalka la isku qabsanaya daraawish ma diidanayaan ku dhahay yani taariikhdana xustay ma fahantay laakiin adiga macnaha sayidka nin cad buu halkaa ku cunay inaad dhahdo ma waxaan madax lahayna ma socoto wax walbana fikradu meel unbay kasoo aasaasataa ma fahantay dad isu yimid bay ahaayeen Soomaali jecel baa maanta Soomaalida qabyaaladu ka dhex taagan tahay ma aha adiga laakiin qabiil ha isgelinin qabiilkaaga kaliya inuu Soomaaliya xoreeyay ha u malaynin qabiil kasta ku jiray Soomaalina waaga qabiil ma ay lahayn awooyaasha ku dhintay ma fahantay sayidkana inaadero macaan oo hadiidin run inaadero inta ka hadal dadkii ku dhintay marka leedahay taleex diyaaradii u horeeya taleex lagu soo weeraray ninka lagu soo weeraray oo maadmulla loo bixiyo maadmulla ya ninka loo bixiyo sayid cabdulla xasan buu ahaa Soomaali fahmin marka Soomaali ani waa ii Soomaali kii dhintayna anu iga dhintay kii maanta noolna anu ii nool yahay laakiin wixii hore intii laga yimaado ya wax hore waxa la yiri ma waxaad qarinaysaa adiga ragna waa ragii hore la yiri hadallo waa intii yiri laakiin waxaan kaaga baahanahay inaad irmacaane hadda wixii la haayo banaanka in la keeno no kaysar ina murno ma aha waxna ma diidanay ya haddaba na dhageyso waa yahay markayaga ilaa waad hadashay ka dhageysaade ma inaad su'aalo i weydiiso waa muhiim ah ma ina macnaha fikradda waxaan diiday qarinta waxaad tiri meesha inaad macnaha tiraado war waxaas macnaha fiiri adiga canaan baad ku jirtaa
in la iscaayana ma عنان fiicno maaha in la عنaan iscanaantana maaha ma dadkan fiicno adeer no dadkii u dhintay okay meeshan aad diidaysaa waad boqolaal kun oo idhegaysan dhulbahantaa kartaa baa u dhintay meeshan oo inaad dhiigga Soomaaliyeed u dhintay inaad yaa eero ku jiray gacaliyo laba midh oo inaan Soomaalida kale hadda ah ma ku la jiray hayaa labada kun inaad ma la labada hayaa midh meesha aad fiir wax laga keentid tegay wax laga macquul tegay tiirsimaad ma la baa la yiri kowdhe wixii hadda taagan baa fiican in tala laga qabto kowdhe marka wixii hadda taaganaa Soomaali leeyahay nooc walba ay yihiin meel kasta dunida ku nool yihiin hadda wax qabta wax hore tagay iyo awow hore damiir lahaa iyo nin hore geesiyo dhintay iyo nin hore damiir iyo diinta ku jirtay ya no laakiin aan nin dibad joogo oo macnaha cayr ku qaadanayo inuu macnaha halka la soo fariisto macnaha aflagaado ama nin madax ama nin macnaha magac leh uu ku gafaa la walaa ولو كان باع adiga ma daraawiishta diidan tahay ma daraawiishta diidan tahay Soomaali oo dhan aan diidanayn war Soomaali oo dhan aan diidanayn ani midda kale si naag ma sayrsan baad noola hadlaysaa ninkeedii no wallahi ana ma sayrsanayn daraawiishna sidii qof aqoon leh yaa ka basayray ma daraawiish ay qabteen daraawiish la guursado daraawiish la guursanin laakiin waxa la yiri wax isweydiin ma xumaaleey wax isweydaarsiga daran su'aalahan macnaha la iska dhageystaa qurux adeeray dadkan in laga hadlo way maxaad u leedahay lagama hadli karo wax la soo dhaafay ma taariikh aan daraawiish tahayn bay Soomaali leedahay midda kale sidee loo qarin karaa oo looga aamusi karaa boqolaalkii kun ee lagu duqeeyay in ay Soomaaliyeed xor noqoto oo dhiigga u soo shubay moodaa inaad wax khaldayso inaad wax kugu tustaafto anna wixii iga khaldan inaad macnaha iga saxdo way fiican tahay Soomaali haddaan nahayna ya waxa keenaya murankaas way waxaan u bismilaan horumarna aan u gaarin laanahay markaas waxa leenahay awowgay qof kala qaybinayo daraawiishta oo aan waxba ku hadlayn baa tahay haddaadan daraawiishta taageerayn oo aadan odhanayn sidaas iyo sidaa waa ku salaamaynaa qof kala siinaynaa kan Soomaaliyay haddaad gumaysi ku jirtaa cid gumaysatana ma jirta idin qof daraawiishta taariikhdeeda qarin kara ma jira adeer daraawiishtu dadkan iyadaa soo xoreysay boqolaalkii kun ee Ingiriis baanu rabnaa in aanu dadkeegii ay laayeen ee ay ku laayeen kibirka in aanu ka soo qaadana xaqooda iyaduna waxay ku leedahay lagama sheekeyn kara taariikhda daraawiishta wax socon kara waxaasi maaha wax socon kara maaha waxaasi السلام عليكم وعليكم السلام مسؤول لوك سلامي برنامج كاد دور السعوداء دراويش تورت تاريخ ذا براد لما قرن كرو تاريخ دي الصوماليات وياشي ويه منعهن وانا وح horumarka aan ku faanayna maanta dadka soo hoyay weeye waana هلو كرال نقضة خط كاحماضي هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. برادر ما في عنتاي ومقعد دمر بدو تابع من واضحة حاسكي قلت لي في كذا كسوق ما جرت وحاسكا حريته ما لها مياه تليفون كذا هنا يدو قارو نقطة أو برايف ضوية أنا حاسكي ما تليفون كان برايفت كلا هانا تسمع لي هذه ما فهمين أنا كل عالم كقف والبا برايفسي بوليه لكن هدي أضيق كوتا لا كسوع حاسكا قاعد نجوا حبنا جميل جدا نمان ناقص كده قاعد ويتشلان
anigu dee nin magaca naaga wata waabay la yaabaa laakiin ku soco barnaamijka ma waa iga argagaxsamooho waa xaaskayga taleefankeeda ayadaa dhegaysanaysay maxaan kaaga argagixiyey nin dee magac naageed wato waa khalad inaad yar waa anagu waxaasoo kale ceeb weeye magarat ها معناها حاسك تليفون لا قاعدة كرم يا معناها ka soco barnaamijka ku soco waxaan anagu wareejinayniyow maxaa laga hadlaya ma garanaysinaa maxaan garanay maxaan dabadaada geeya naga dabageey maxaa laga hadlaya dabageyn lana doqonyo ftada xun dabagee buu ku oranayaa yaan soo qabanaa oo barnaamijka waa iska soo gabagabeynaynaa yaan soo qabanaa Soomaali baynu ka hadlaynay dadkii Soomaali xoreeyay oo لا قصد أنا horta waa ku salaamay assalaamu calaykum horta waa ku salaamay waa kaa qaaday brother qofka jawaabta horta waa siinaysaa qaarkood dabaaliin waaye telefoonka xaaskaygaan wataa ku lahaa xaaskaaga telefoonkeed u dhig kaaga soo qaado haddii homeless aad tahay xaaskaa ku xukunta calow ya midda kale waxaan ka daba tega gabadhii dhehaysa daraawiishta okay sayid cabdulla xasan uu xagxaganaysa qabiilkeeday rabtaa qabiilkeed intas degaa dhadhaj buulas degaa kenya isku yaallaa abeesaa kugu cunaysa abeesaa kugu cunaysa dhadhaj buula gabadha siidka u dacwoonaysay ee hadda dhulbaantaa dhulka ku jiidaysa haddana dhulbaantaa dhulka ku jiidi rabaanay waxaad geri ahayno ma liga aaminayo ay waa laga aaminayaa geri waa niman culus maya dadkii ka saayo cawada way fiirsanayaan dad badanaa fiirsanayaan waxba iga gelin ma maqlaysa axmedeyga hadda horta waa ku sugtay jawaabtu waa siisay kula warkayga dabagee maya waa ceeb weeye nin ma garanaysaa ceeb way telefoonaan leeyahay anaa iskale anaa telefoonkaa iskale xaaskay telefoonkeeda adiga xaas soo ma qabtid xaas waan qabaa iyadoo shanqarays ma maqashaday iyadoo shanqarays agtay telefonkeeda soo qalad maaha inaad shaqa maba ku liibo waxaas maxaa ii geliya waxaas iyada asxaab leh anigana asxaabaa leh waa xeerkay qoyska macnaa qofka mala dabuubi karo lama xirxiri karo marka kii hadda dhahay qoftii hadday suxsaneed oo inkiraysa daraawiishta inkiraysa sayidkana daba ordaysa reer magaalnimaysa sayidka ma diidanin baan nidhi laakiin yaan la xaqirin dadkii hawshan waday haddaan kuu sheegaa marka dadkii dhulbaanta ahaa geesiyaashii aqligu lahaa aqligood way ku fariisteen kursiga soo laguma fariisto aqligood way ku fariisteen isaaqoonkaas hargeysa u haystaa meel ma u bixi karo ceergaabi yaa degan meeshan kale laascano shalaa soo maray aniga runta dadka iskuma sheegayo somaliland aan la dhahay somaliland micneed halii fasir waa dhulkii soomaalida aw dhulkii ingiriiska ah am idin sheega dhul bahanta tashada runa idin sheegay haddaa hiil iyo hor rabtiina ma jeertay dhinaciin u taagan yahay nin walba qabiil calan subsada aan geriyahay anoo geriya hataa cidaan ku xirnaa ma jirto kaas soomaali ahay marka waa kaas ninkii xanaaqa isay u taallaa أما المركز قاركود هذا قف ولا ليش على الله متخنا أي كان مجاجلست اسكو في عين قصة الكارس كده اللي ولا قارو أكو عين عين شو كده محكا قال واحد محكا قال المركز ده كنت سومالي كنت اسكو مش شاكتو نيكي دراويش أما البهانة جريمة دراويش تورت البهانة يحن بارسنتا جري قديس وكل انت ماشاس او رجي وكل انت انا وان لا قريه ما ان لا قريه انا حتى وكل انت انا حتى واحد جري هاي ساعه وانت دقاني هاي قفل بسدا سانكاي علان كاس بلوغان وتاني هستي دنواتنا قف باي ميل بوكتا وات هستي هستي دار نوكس امريكا نوزيلا أنا أمريكا توهيسا ودني قد جيسنايا ومخلص
soomaalina waa si imid wanaag qofkaa rabaysto waa u tegaad qofka u rabo waa la hadlaale luuqada sare wariyay darab maraasaa u soo gud wariyay mise bowa baya su'aal baan ku weydiinaynaa daraawiishtu Soomaalidii ay xoreysay meeshii ugu horeysay ee Afrika diyaarad lagu soo aniga kamid sug su'aasha jawaabteeda adaa qaadanaya magaalada Taleex bay ahayd meeshii ugu horeysay Afrika diyaarad lagu soo weeraro boqolaal kun oo darwiish baa meesha ku dhintay oo Soomaali cid walba leh laakiin nimanka daraawiishtu ha u badnaadeen maxaa loo xusi waayay oo dawladdii Soomaaliya ama shacabkii Soomaaliyeed u xusi waayeen dadka u dhintay xornimada Soomaaliya u dhintay waxa loo xusi waayay ku dabaala jooga oo xafiiska aan u qalmin jooga ku doqona jooga oo waxaas dan taariikhda dhan daboolayo taariikhda dhan qarinayo oo ka fakaraynin war history hadaa rabtina soo barto Soomaali dhaqankeeda hidaheeda dhaqankeeda haliyeedeeda qofkii hadduu rabo inuu soo barto ya ma maqlaysaa wuu ogaan karaa waxay Soomaali ahayd shalay soo ahayd shalay waa ka guuraynay gabadha ku soo guugeysay shalay iska dhaafay maxaa taagan shalay dadka soo dhaafo shalay iska soo dhaafo mo wadanka dadka soo xirooyay soo hargamay hada iska dhaafo wadanka waa gadanaa mo mise calana soo suruna qofkii la yiri wixii shalay garan waxa maantana ma garto mahmaahdaas aad qabanaysa ma garan هاد ما وحير كسوتك وحير أدو وحو كهدي كبه هذا الشرف كويله قيمو كويله سوماليا سوماليا حتى أمريكان كحتى وحيد مقعن سومالي نمضى أي كوفانيسو يا أوصل دنتي دينتنا إليه هذا الحمد لله يا أوصل دنتي رقبة أوصل دنتي رقبة أوصل دنتي لو دقيني كوبابين ميل بكوبابين ده بدنا قرال يسوق قرال لكن قرال ما فيرنا هنا SYL استاجن أحمد ديجو كله شعيب مولد محمود SYL استاجن وارون إن شاء الله مركا كيسو أنا هاي واحد صومالي أمريكان واحد سدا أنا تان أدم يقو قصبين ما جرتو واحد جرين واحد دتك دود سنة دتك دود سنة هلام دول بانت فرا دول بانت هلام فرا حبت دي دليسو رابين وسو هبك قاتا غرينا الى شلا مجرتان يوكو ugu dagaalameen hargeysan isaaqna yey labadin dhaxdina isku dagaalameen ingiriis wuxuu dhaamad qana if two bulls fights the grass will suffer haday labadibi haday dagaalamayaan cosku wax gaara yaa way kan hubka soo qaadana waa hargeysa isaaq yaa way kan kala majeerteen oo meesha ku ekaw ina dhada laga rabaa daar dhul baahanta tahay war isaaqow halka ku ekaw war shufت hadaan ahaan la shuftaan qol la shufto sidad loo dil xitaa wallahi waa ka saa shuftaan ahaan la hadaan dhul baahanta ahay oo labada ruux isku dil labada ruux kurka isku boboodayna no ma qaadanayo bani ma ba qaadanayo hargeysa isaaq waa sagaal kaabrood dhul baahantana waa kaas ma jeerteen halkaas wata nin walba xeradu oo taa ku ekaado calow waa ku maqlayaan kulay si wacan baad ula hadashay حتى يمكن أي وتر أنا واحد قري هاي بري أنا شاطر مسك بدل فيني بدارنا على أبوك أقول على أمريكان بدارنا على أبوك أقول على أمريكان كي قلي عمي قلين جست معاه ماشي تتكب أنت سكوشي شيء قال تتكب أنت سكوشي شيء قال دول بانتو قميسي مقال أساس قلنا دول بانتو قميسي مقالي دول بانتو قميسي مقالي كرو مجيرتين أو مركي أبوه أي دايان هذا أبوه لك بالعمود أبوه هذا وين باي أبوه ورير حمر كوي برير حمر أنا فاتو مركي القرى أبوه الدهمو هذا يلقين كل بول باي لين يا باي يا هبار وحس أنا واحد يشيء دول بانتو ما له بالأذى والله هذا شان دول بانتو ما له بالله هذا شان دول بانتو قبيلة تاي أباي هو هذا نعل كيه لي أنا صرت جدار هذا شو كاد دجالين الروح هذا وسع هوك قاعد كحرت مجرته سوى عم بعض الله اللسانية وعدي واحد فهم يعني أنا فرايا حبيب فرايا أروى كاسان ميلا أنا قرية ميلا دقيشة جيجا دكتور لإثيوبيا مي ورجع دكتور مكادلي كينيا اللي قلت الماما واحد اسكاه جري مسكين تو اسكاه لكن هدينا هالمر عرونه
hal mar haddaa caroon waa caroonna waay laakiin yaa ku caroonaynaa waay Soomaaliya waay yaa ka caroonaynaa Soomaaliya waay dadku waa qosle waa suusin umalayna gari dhul baan siinaynaa maadaama aad sidii daraawiishta u hadashay war aan cid kama cabsanay wallahi cid kama cabsanay maxaad u sheegaysaa ninkan doqonka dhulbahante ee Somaliland daba ordaya iyo هذا قاتوي كاس نونتس كم غلا واحد فيري كم بنتلاند بورد واحد لهاي لبدaba faa'iido idinkuma jirta dhuuntay ka wax ka maqlaan dhuunta dhul bahantu ma danaynayaan kuwaas no alow shan farood la shanta aan ka celinin sharci ka ma reebo nin walba xaru oo ta Soomaali way kala qaxday walaalku way kala qaxeen nin walba xaru oo ta alow qaatumo isteed meeshada ha oodato hargeysa weynaan dhahaanay hargeysa weynay isaaq ha ootay wuu ootay ha ku cibo bartiisa ku ekaada hargeysa uu ka bixin laas caanood ma soo gaari karo meesha taargada lagu bedelo taargada Somaliland meesha lagu bedelo marka Puntland u sii socoto Puntland marka u sii socoto taargada meesha lagu bedelo hatta in lagu bedelo ma weynbo ka sii hore dhul baantaa sii hormaro taargada dhul baantaa ku soo gala ka bacday tiim majeertanka ku sii Quraan adana ka sii baxa dad badan maadaama aad adigu martay nin gari combat tahay oo aan ma garanaysaa been sheegayn lascaanood calankii buluuga ahaaba ka taagan dadka qaar ba aaminsan Somaliland calankeedu inuu ka taagan yahay oo been loogu sheegay dadka maxaad u sheegaysaa habartood ha wasaan le habartood ana arkay hadda maxay ka taagan ana calankii buluuga calankii Soomaaliya qorti ugu suran hatta Hargeysa waxaan ku degay mataqaana Hargeysa waxaan ku degay reer isaaqan ku degay reer Hargeysa أنا أركي على كاس أنا باور إن غير مرك أنت كتجي حنا Soomaalidan la leesiyo dusheedii banuura heesay qaadaysi mataqaana barbaradan la sheegayo dadka ilkaha giyay soo cabeen oo xasaan ku noqdeen abal asoo markii soo fiirisid waa soo marle anu giro qaad cuna isbaar u taagan kan maxaa waay waa weydina kan maxaa waay intaas waa weydina waxaan arkay calan yaro waxaan arkay lacag yaro cagaaran oo de Hargeysa la kala ku Hargeysa maxaa waay hadda inta raashinka cunto ma taqaana باور هرجيس هدا كورت ساعة وفرق ما تقيسه والله دق ساعة صعدت له أنا بيد ما كسه هرجيس إساقة وقوت إساقة إسكاله لاس عانو طول بهانتا إسكاله ويدي وصي أقليين وكفريستين ود الذي وكفريستين كعطوس وبقاتا نعلا طلع عليك طول بهانتا معاه سان إليه أنا والدولة أنا أنت سياد بر أنتو بربوري يقول لي أنا مدح بنانا أنا مدح ما ديار تاجسود تتكي ماتا ياكو ماذا عنو إلما تصفوا شيء قنيسين الناس اللي بحين أوكي حاجة دقة ما هذا ومد إلهي لما كنت قيس جري آي ما كنت قيس دمي ما كاقله جري آي دمي ما كاقله هدين هرجيسي ما تبري وحرمية وإذا ذا وسا وإيمان عطنا وإذا ذا وسيسا كورن وإحريسا وصوب عليك معاكله قفول بمدير هذا محري قفول بمحريس هذا قفول بمحريس أكتاس عمر حتى كي كوعد شيء محريس هو واريونا سك حمرا كريونا سك صحو حمرا ندو قيسي واريونا سك واريونا كيس والله واشيغا والله أنا واحد Soomaali جري كومباي ريد كروس جري كومباي دل الشديد الحمد لله رب العالمين إسبار ولي ما دقنين لكن قبيل كي نيكو كل هذا السنة هذا عوض كدلا مكوشة هو مكوسو قادنا حتى فاتحان كو ضلبنا استغفر الله عندها إلهي ذكر يقبض لها بس إلهي كان يقبض dad badan baa leh gari kombe waa qabiil yar war gari kombe waa nimankii Soomaaliya u soo talin jiray rag badan oo caana ka dhashay waa dad محمود تكاله odagii Allah uu naxariisto محمود تكاله hablayo hadna guursan doontaan keenay محمود تكاله gari waaye sidiisoo kale u fool xumay marka ما تشتكي يجا لهان تري جا يجا كتلين تري تاريخ وين بيلي جري كومبي إثيوبيا وينه إثيوبيا وحس ورجع دكتور دكتمتي وحس إثيوبيا وين دنانو دنانش
laakiin soomaalida dadka waa is xaqireen hadda jariira la xaqiraa lagu leeyahay duwaya la xaqiraa lagu leeyahay daarood wax iga weyn dhul baahantaa jira ana xaqiiqiyaa laqa soo tuf uurka maridas iyo yani kuwii ma hadlaan faataxay ku hadlaan laakiin afkaa ka hadlaan intaa noolaa soomaali dhanna walaalaan nahay waa kaa soomaali saaxiba waa daar dacwada inay disho soomaalim la igu dil qabiil la igu soo gabanin qabiil la igu soo ooyada orame ko inta yacqoob maxaa la yacqoob badaawi wuxuu leeyahay geri waa oramo habarta orame marka kaysow barnaamijka qof kala soo qaba dhageysanayna insha Allah khayr ay noqonaysaa waay laakiin aan dhul baahantoo dhan ma taqaana dhul baahantoo dhan ma kicin kartid qofku waa baahan yahay waa maqan yahay dadaa xataa waxay ku leeyihin okay kan qurbuu ka soo hadlaya waa ka soo hadlaya intee laga hadlaa qurbaha laga hadlaa guriga laga hadlaa meesha rabta meesha taagantaa laga hadlaa war musqusha laga dhaxalaata haddii il waa dad riwaayad wada weeye dad waxaa iskaga sheekeynaya haddaad aragtid qofku meeshuu joogu marba ka hadli lahaa aakhira qaar ka soo hadlaan aakhira waxa ka soo hadlaa ogaadeen qori wataa ka soo hadlaa ogaadeen ku xidhnaa anna ugu wareeriyeen mugta kula dhulka haddaa qodo kula ogaadeen beka em wataa arkaysa dhulka qodo ku leeyahay annaga nagu wareeriyay waxaas dhulka qodos ku leeyahay ogaadeen beka em wato aad arkaysa been way shuftanima meesha loogu dilay waxaa run ma la isku sheegaa ama shuftanima dad badan ay soo qaba ku dhahayan waa okay mase waa seexanaysaa goor dambay kuu tahay maaniyow laba qof baan soo qabanaynaa waa iskaga soo qaba waa dhegeysanaya hay soo qaba waa dhegeysanayna insha Allah khayr ay noqonaysaa insha Allah khayr ay ninkaasi waa geri kombo weeye waa nin daraawiishta aad u taageersan waa nin wanaagsan weeye السلام عليكم. وعليكم السلام. وريا كيسر بورن. وخير وينادر. ونيو بالبانتون كنا عاي دقيسنا يساعي ذلك يجي عاي خدنا كيجي عاي ضد كيجي. يا هذيك القولة ذكرها دقيقة أنا قلنا عاي يا. dee dadkan bal isku sharax ninkanna waa nin culus oo baantu maaha waa nin Soomaali oo gari komba adiga wajigaaga maxaad ula cararaysaa qabiilkaaga iyo wajigaaga inaad sheegtidna waad cararaysaa waadna maagaysaa isaga dee aniga waad garanaysaa waan kugu jiraa khadka oo saaxiibkaa baan oo aniga mar walba soo galay inaad imika isagu gari kombu yidhi waanahay wuuna ku faanay wajigiisuu soo dhigay waad cararaysaa adiga markaa ka laan gaabsan soo lagu maro important waxa weeyaan markaad imika kaysrow soo dhigto maxaa la yiraahdaa aad doonaysa live inaad soo gasho dadka caayina tiraada bay ahayd hey joog waxa sameeynin way adiga ka koocha meesha moogtay adiga hadda miyaad amaantay isaga ila nin baad ku tiri baantu baad ku tiri waad cayday soo khalad maaha taas may khalad maaha dal aanu lahayn iyo dad aanu lahayn garanayn buu afka laga diinaya marka adiga koocha imika anigu haddaan kaysrow coach ahay oo aan live-kii gacanta ku hayo qofku markuu borderkiisa ka tallaabo waxaad oran kartaa hey borderka ka tallaabin laakiin sakaysar oo aad tiraahdo oo aad la sii wado waxay noqonaysaa dee adiga laftaadu inaad aad isku mid tihiin marka naga qabo dalka wax waa laga sheegi karaya dalku waa anagu dal balaaran baan waa laga hadli karaya dalkayga no problem laakiin dadka in la caayo xaq uma laha ninna ma caayo karayo garaad maxaa la yidhaahdaa dhulbaanta lama caayo karayo dad kaloo Soomaaliyeed lama caayo karayo laakiin dee waxa wanaagsan inaad tiraahdo hey waxa sameeynine sida laakiin markuu dee Somaliland Hargeysa imika caayo dhageysanaysa saaxiib anu ma ogolaanayo qof laascaanood caaya qof Muqdisho caaya ma ogoli qof maxaa la yiraahdaa caaya Puntland ma ogoli ma garanaysaa waxaan onayahay xagga dariiqa waad ka baxday borderka waad ka baxday ku soo noqo border ma ninkaasi xoogaa dadkiina kululeeyay baad moodaa ninka gari kombe isaga qudhiis waxbuu saxayay waxaan maleynayaa xumaan kama ahayn waan ogahay jaamac cali kaar waa kaa qaaday saaxiib ninka inaga gudbi sidee u aragtaa daraawiishta iyo waqtigan maanta waxay ku beegan tahay maalintii la duqeeyay
daraawiishta maxaad ka odhanaysaa arrinkaas dadkii okay gardarada ingiriis ku duqay okay kaysar taa waan kuu sheegaya waxaan ka aaminsanay laakiin waxa dadka inaga qabo dadka caayaya waxaad tidhahdaa hey stop waxa sidaasaan isku ognahay daraawiishta kaysarow horta ina cabdulla xasan baa watay soo ma ahayn madax buu ahaa laakiin daraawiishtu ina cabdilla xasan keliya ma ahayn waan ogahay ina cabdulla xasan baa ka boos ahaa waxa weeyaan marka aad halgamayso ama aad doonayso in aad wax horayso marka hore inaad aqalkaaga ka bilowdo weeyaan ina cabdulla xasan awowgiisii afraad tobnaad baa etoobiya gumaysanaysay inuu etoobiya ka soo bilaabaa bay ahayd inuu somaliland ka bilaabo may ahayd halkaa uu may horta daraawiishtu niyaw daraawiishta waa khalad saaxiib dembi baad gashay asxaabta iyo daraawiishtu isku meel bay joogaan lama aflagaadeyn karo waa inaa istakfurlaysa kaysar isi jaanis wallahi ma caayaya anigu cidla maye waa khalad weeye saaxiib jaanis kuma siinayno maadaama aad darwiishkii sayid maxamed cabdilla xasan aad afka kusoo taagtay taas ma ogolin mana yeelin saaxiib dhegeyso taayadiiba waad ogolayde taayadii hore ka horreyse eeg waxa weeye taasi ma odhane wuxuu yidhi isagu daraawiishta iyo soomaalida kale isku maqaam maaha soomaalida kale waa la caayi karaa laakiin daraawiishta waa maya kaysar saaxiib garaadi dhegeyso waxa importu waxa weeyaan ina cabdulla xasan dhulkan uu ku dagaalamayay muu lahayn dad baa iska lahaa haddii uu doonayo inuu dagaalamo uu dal xoreeyo etoobiya inuu ogaadan ka xoreeyaabay ahayd ma ahayn inuu xagga yaga yimaado uu isku qaado isagoon waxba samayn karayn marka wax daraawiishta odaygu uu ku khaldamay dee markii dambena waa kii iska cararay niyahow ogaadeenna wuu xoreeyey soomaali oo dhan buu xoreeyey qof kalaan jaanis siinaynaa daraawiish qof caayay ma siisiin karna waan ku salaamaya daraawiishta waa lama taabtaan weeye yaan kusoo gebagabaynaa barnaamijka qofka ugu dambeeya last one-ka yaan ka dhignaa qofka ugu dambeeya barnaamijka gabadhaasaan siinay jaaniskaas shukri waad qaban weyda in adeer mar labaad baan ku siinaynaa jaaniska qofkii jaaniskiisa la siiyo ha ka faa'iidayso barnaamijka waa iska soo gebagabeynaynaa qofka u dambeeyaan siinaynaa soomaalida iyo daraawiishta waxaan leenahay daraawiishtu ha midoobaan oo ha eegaan midnimada
halo ma maqlaysid miya codkaaga ma maqlo codkaaga هلو يس عليكم عليكم السلام وعليكم السلام موضوع وانا للسعودية وانا كير بحي لكن هذا وصل نقضي marka ayaad ka sii baxaysaa bal maleeyo muusiga sii saartay marka waxaan qarmeynaa mawduuca ka qaato caan waaba halo صح halo ويرجعوا جاي هذا الكلام وأكون مغلي هذا برنامجك هو حرية هي وايد إسلامي وإن سلامنا برنامجك سداس ku xiran yahay dhalinyarada daraawisheed waxaan ugu baaqaynaa in ay midoobaan oo ay taageeraan ururka midaynta dhalinyarada daraawisheed ururkaas oo deegaanka Khaatuma State wax badan ku soo kordhin doona dhalinyarada daraawishta waxaan ugu baaqaynaa in ay midoobaan oo soo celiyaan daraawishnimadii iyo xornimadii dadka daraawisheedna waxaan ugu baaqaynaa ama dadka Soomaaliyeed in dadkii Ingiriisku xaqdarrada ku laayay ee u dagaalamaya halganka iyo xoreynta Soomaaliya daraawishta in xaqoodii laga doono Ingiriiska oo si bilaa shuruuda uu bixiyo wax loo dul qaadan kara ma aha in la iska aamusnaado daraawishtuna ay xishooto oo aamusnaato barnaamijkii sidaas ku xidhan yahay waa in dadku fahmaan dadkan inay dalkan in dad u soo dagaalameen dad dhiigooda u soo qubeen Soomaalinimadan lagu faanaya dad u soo dhinteen marka waa in islaamayna barnaamijkii sidaas ku xidhan yahay